السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك وحدن جنال كينا وهليها أمدا كسر دوا تحنين كوي تونات يكون هبين فضلا هدي أدنو عصب تسود دو سبسكرايب صار جنبالير كان ركمو سي كوسو جاران وحول بأنصارك ندربدي با هدي أظهرين ولا جوكتينا لايك صار سينا شير جري أو لو ذاك أصحاب تاذا كان ديو فكر كيف يعني كنا سوق رقابته هو سيكون تيادا مركز دعوة كدب أنا جن سي أي دي رجلين يقول نقطه ما السنة هدرنا دعوة شو عن هبين كي سيالات كدب أيو بقر كي مركز كعصة إني وسود دوا سي gacanta ugu dhunkato ayuu dhahay soo dhawow markay u dhawaatayna seeftii hoos ugu jirtay inta la soo baxay wadnaha kaga suray asigoo dhabarka ka sii bixiyay kadibna laba qaar u kala jaray markuu dilay naagtii ayuu qubadii boqorkii ka soo baxay waxaana ka hor yimid wiilkii boqorka ahaa oo aad u faraxsan halkii ayuu boqorkii ugu mahad celiyay wuxuuna weydiiyay ma boqortooyadaadii ayaad u noqonaysaa mise halkan ayaad joogaysaa markaas ayuu boqorkii yiri waxaan ka soo tagay ciidankayga oo meel cid ah joogaan marka waa inaan degdeg ugu laabtaa markaas ayaa wiilkii boqorkii weydiiyay mise ayaad inay boqortooyada ku jirto wuxuu boqorkii ku jawaabay 2 ilaa 3 maalin kama badna markaas ayaa waxa dhowl cadeeyay wiilkii boqorka ahaa asigoo ku yiri boqorkii weynaa magaalada aad ii sheegtay waxa inoo jirtaa uuna soconaynaa muddo bilooyin ah sababtaan isugu soo dhawaanay waa sixirka ee halkan nala joogin muddo ah waxaana ku balan qaadayaa inaan magaaladaas si nabadgelyo ah kugu geeyo kadib boqorkii weynaa in muddo ah ayuu la sii joogay wiilkii boqorka ahaa muddo markii la joogay ayaa la go'aansan in boqorka la galbiyo oo la geeyo boqortooyadiisa sidii ay isku raaceen labadii boqor iyo askartoodii waxay muddo bilooyin aajidka ay ku soo jiraanba waxay yimaadeen halkii ay joogeen ciidankii boqorkii weynaa oo sidii ay boqorka u sugayeen qaatibillahi tagna si fiican ayaa loo soo dhaweeyay labadii boqor wasiirkiina waxaa loo sheekiyay sheekadii ka dambeysay afartii kaluun ee kala nooc ahayd iyo barkadii biyaha kadibna waxaa loo wacay odaygii kalluumaysatada ahaa oo sababta u noqday in magaalada oo dhan sixirka laga qaado waxaana la weydiiyay xaalkiisii iyo inuu caruur uu leeyahay waxa uu sheegay inuu xaaskiisii iyo 2 gabdhood u dhalay inuu la nool yahay markaas ayaa gabdhihii mid ka mid ah loo guuriyay wiilkii boqorka ah halka mid kalena uu guursaday boqorkii weynaa sidaas ayuu odaygii miskiinka ah sadaq uu noqday 2 ka mid ah boqorada ugu weynaa adduunka ee markaas markay dhameysay Shahrazad sheekadaas ay waxay tiri waxa si ka yaab badan sheekadii xamaaligii iyo gabadhii markaas ayuu boqorkii yiri oo maxay ahayd sheekadaas Shahrazad waxay tiri xamaaligii wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah muuqaal dabiici ah oo dabacsan leh laakiin wuxuu ahaa wiil iska danyar oo waxba haysan wuxuuna ku noolaa magaalada Baghdad sidaas darteedna wuxuu nolol maalmeedkiisa ku soo dhaxsan jiray xoogiisa oo wuxuu ahaa xamaali dadka suuqa u soo dantay alaabta u qaada maalintii dambe ayaa waxa dhacday asigoo aan shaqo haynin oo suuqa iska dhex jooga kuna sintaacsan gaarigii uu alaabtu ku qaadi jiray ayaa waxa soo dul istaagtay gabadhaas oo ku labisneed dhar xariir ka samaysan oo aadna u asturan wajigana uu u dadnaa inta inshareek iska qaaday ay waxay ku tiri soo qaad gaarigaaga oo isoo raac markaas ay wiilkii madax kor u qaaday ayuu wuxuu arkay gabar aad u qurux badan indha madow leh tilmaam kasta oo qurux lagu sheegana leh xamaaligii waa uu soo kaxiyay gaarigiisa wuuna soo raacay ilaa ay ka timid dukaan albaab weyn leh waxayna dukaanlihiisa 2 diinaar waxayna ka soo qaadatay xoogaa zeytuun ah waxayna u dhiibtay xamaaligii kadibna waxay u tagtay nin miraha faakihada iibiya waxayna ka soo iibsatay nooc kasta oo faakihada ka mid ah waxayna u dhiibtay xamaaligii waxayna u tagtay kawaanlihii waxayna ka soo iibsatay 10 radal oo hilib ah waxayna u dhiibtay xamaaligii kadibna waxay u tagtay nin cadar la ah waxayna ka soo iibsatay shamac iyo wax kasta oo ka mid ah waxyaabaha carfa markaas ayaa xamaaligii yiri wallahi hadaan ogaan lahaa inaad iibsanayso wax suuq yaalo oo dhan waxaan soo kaxaysan lahaa baqashaydii gabadha inta ay dhool cadeys ay waxay ku tiri isoo raac waxayna u tagtay nin iibiya raashinka iyo cuntooyinka iyada oo dhowr nooc oo raashinka ka mid ah ka soo iibsatay si ay u soo wada xamaaligii ayay waxay keentay guri aad u qurux badan aadna loo sharxay muuqaalkiisa korona ku soo jiidanayo albaabkii ayay u garaacay si tartiib ah asigoo isla markiiba furmay sida albaabka inoo qof si taagnaa oo la sugayay waxa uu fiiriyay qofkii albaabka ka furay mise waxa uu arkay gabar aad u da'yar shaf yar oo taaganna leh waxayna lahayd indhaha deerada dabana shuban suniyala mooda bil hadda dhalatay san dhuuban af yar oo aad u qurux badan waji u ifayo sida dayaxa oo kale calool yar iyo dhex aad u dhuuban markii wiilkii yaraa uu arkay gabadhan oo qurux iyo adduunkii oo dhan oo kulansatay ayuu wuxuu ku sigtay inuu alaabtii waday oo ka daadato wuxuuna yiri cimrigeyga maanan arkin maanta maalin oo iga baraka badan kolkaas ayay gabadhii labaad albaabka furtay tiri soo dhawaada gurigii ayuu sii dhex galay asigoo alaabta wada kadibna waxaa loo sii gudbiyay qayb sidii hoolka u samaysan waxaana dhex taalay sariir lagu xardhay go' ka samaysan xariir aad u qurux badan waxaana sariirta ku fadhiday gabar iyadana aad u qurux badan oo leh indha buluug ah iyo joog aan caadi ahayn una qurux badan sidii meeriyaasha iyo xidigaha ifa habeenkii gabadhii sariirta ku fadhiday intuu istaagtay ayay xoogaa soo socotay ilaa ay ka timid hoolka dhexdiisa markaas ayay tiri maxaad u istaajiseen xamaalka miskiinka ah alaabta ka dejiya labadii gabdhood oo kale ayaa ka caawiyay inuu alaabta dejiyo markii xamaaligii ay ka dejiyeen alaabtii ayay siiyeen 2 diinaar waxayna ku yireen waad fasaxan tahay wiilkii markuu arkay hantidan aad ku faraha badan ay gabdhaan haystaan guriyan quruxda badan ay ku nool yihiin iyo sida ay kaligood ugu nool yihiin ee aan wax nin ah la joogin ayuu la yaabay asigoo oo aan weli bixin oo na ka cajiiday inuu baxo ayaa gabdhihii yiraahdeen maxaa ku dhacay oo aad la bixi laaday mise lacagta ayaa kugu yaraatay 2 diinaar oo kale ay u soo taageen wallahi ilama yaraan lacagtaad isiseen laakiin qalbigii ayaa ku mashquulay xaalkiina
waxaana yaab ila ah oo idinkoo saan u qurux badan oo aan wax wil ah idinla joogin waad ogtihiin guri kasta wuxuu ku tiirsan yahay tiir kaasoo ah ninka guri aan tiirka lahayn wuxuu qarka u saaran yahay inuu daqiiqad kasta duma dumarkana wuxuu tiirkooda noqdaa mid dhammaystiran markii ay nin helaan gabadha aan nin haysanna nasiib ma laha idinkana waxaad tihiin saddex dumar ah waxaadna u baahan tihiin nin idin afreeya kaasoo oo ah nin caqli badan geesi ah haddee danta keentana idin difaaci kara markaas ayay ku dhaheen anagu gabdha ayaynu nahay waxaynu ka cabsanaynaa inay sirahaynu dad kale ogaado waana dhibaato in sirtaa la ogaado waxaana hore loo yidhi ninkii sirtiisa dayaco naftiisa wuu dayacay wuxuuna ugu jawaabay aniga xamaal oo keliya ha ii malaynina waxaan ahay qof aqoon leh wax badan og halkaana duruufta ayaa i dhigtay waxaana sii ahay qof waxa fiican muujiya waxa xunna qariya oo dadka sirahooda xifdiya marka ay gabdhihii maqleen hadalka wiilka iyo qaabka uu u qanciyey ayay ka ogolaadeen inuu la joogo laakiin hal shardi ayay ku xidhan kaasoo ah hana weydiinin waxa aanan ku qusaynin haddii kale waxaad la kulmi doontaa waxaanan ku raaligelinin wiilkii waa u ogolaaday hadalkoodii markaas ayaa gabadhii koowaad istaagtay wiilkiina gacanta soo qabatay wayna waday ayadoo geysay musqusha kadibna waxay ku amartay inuu soo qabaysto oo is soo nadiifiyo waxayna siisay wax kasta u baahnaa markuu soo qabaystay ayuu gabdhihii u yimid iyaga oo qadadii diyaariyey si wadajir ahna way u qadeeyeen markay qadeeyeen ayaa gabadhii saddexaad istaagtay waxayna soo qabatay dhalo qamri ah waxayna mid kasta ugu shubtay koob markay cabeen oo qamri iyo caqligooda gaaray oo wada sarqaameen ayay gabdhihii wiilkii u soo dhawaadeen asigiina wuxuu isku maleeyay inuu riyoonayo wuuna aamin waayay gurigan qasriga ah oo saddexda gabdhood oo quruxda badan oo keligii la joogo waxaar kadib waxaa istaagay gabadhii weyneed oo isku tuurtay bargada dawaasha oo meesha ku taalay labadii gabdhood oo kale iyo ninkiiba bargadii ayay isku tuureen markii ay qabayskii ay dhammaysteen ayay ka soo baxeen maalintii oo dhan waxay ku qaateen cunto cunis iyo qamar cabis ilaa laga gaaro habeenkii iyaga oo faraxsan oo meesha iska fadhiya ayaa la soo garaacay albaabkii markaas ayay gabdhihii is eegeen ayagoo isweydiinayo qofka saacadan albaabkoodii soo gargaraacay kadib midood ayaa kacday si ay u soo fiiriso qofka albaabka soo garaacay kadib waxyar kadib ayay soo noqotay waxayna gabdhihii kale ku tiri waxaa albaabka taagan saddex nin oo cajam ah saboolnimo ba'anna ay ka muuqato sidoo kale waa ay wada madax xirxiran yihiin dhammaantood saddexdoodana ishi bidix ayay la'yihiin waana dad qariib ah oo waddanka ku cusub waxayna ka yimaadeen dhulka roomaanka mid kastoo ayaga ka mid ahna muuqaalkiisa haddaad aragto waad ku qoslaysaa waxayna rabaan caaw inaan marti soorno oo miyaan marti soornaa labadii gabdhood oo kale yidhi haayay soo daaha soo galaan una sheeg shardiga ah inaysan na weydiin wax ayaga aysan qusayn haddii kale ay la kulmi doonaan wax aysan raalli ka ahayn sidii ayay nimankii saboolka ahaa guriga ku soo galeen markay soo galeen ayaa waxay arkeen xamaaligii oo meesha fadhiya sidoo kalena oo sarkhaansan marka hore waxay moodayeen inuu yahay mas-uulka meesha laakiin gidaal dambe ayay ka ogaadeen inuu ayaga la mid yahay ayaga oo sheekaysanaya ayaa waxay yidhaahdeen war kanna waa faqiir anaga oo kale markaas ayuu xamaaligii madax kor inuu usoo qaaday ku yidhi war qunyar meesha iska fadhiya mise waxaad ilowdeen shuruudda aad meeshan ku joogteen markaas ayay gabdhihii qosleen kadib markii cabaar la joogo oo wada sheekaysteen ayaa ninkii xamaali ah ku yidhi haddaad heesaa wax ka taqaanaan caawo wax noogu dhufta waxayna gudagaleen inay heesaan halka gabdhihii najaas ay u kaceen habeenkaas sidii caadada ahayd waxaa magaalada wareegayay amiirkii mu'miniinta ee haaruun rashiid iyo wasiirkiisii jacfar iyo mansuur oo wasiirkiisii gacanyaro u ahaa haaruun rashiid waxaa caado ahayd inuu shacab iska dhigo oo magaalada wareego si uu la socdo magaalada iyo dhaqdhaqaaqeeda kadibna waxa ay soo agmareen gurigii gabdhaha ay degnaayeen waxayna maqleen heestii iyo ciyaarta shanqarta guriga kasoo baxaysay markaas ayaa amiirkii ugu baaqay jacfar inay guriga galaan caawa si ay ogaadaan wax ka dhex socda kadib ayay albaabka soo gargaraaceen ayagoo iska dhigaya niman tujaar ah oo gobolka meesha ugu dhacay markaas ayaa albaabka laga furay kadibna waa la soo geliyay ayagoo sharad loogu dhigay inaysan ka hadlin wax aysan qusaynin haddii kale ay la kulmi doonaan wax aysan raalli ka ahayn sidii ayayna guriga kusoo galeen gabdhihii ayaa soo dhaweeyey waxayna u keeneen waxay u baahnaayeen ee cunto iyo cabitaan ahaa markuu haaruun rashiid u arkay muuqaalka nimanka saboolka ahaa iyo gabdhahan quruxda u ala siiyey ayuu la yaabay kadibna waxaa loo keenay koob qamri ah uu ka cudur daarto oo ma uusan cabin markaas ayay gabadhii yareed usoo haweysay cabitaan si gaar ah maadaama uusan cabin khamriga wuuna ugu mahad celiyey cabaar markii la joogay ayaa gabadhii weyneed istaagtay oo xamaaligii ku tiri kaale oo icaabi waxay furtay qol meesha ku yaalay oo maanta oo dhan xirnaa xamaalkii waxa uu arkay labo ee oo aad u waaweynaa oo qolka ku jireen doofaarna aad u malayso sida ay u waaweyn yihiin awgeed markaas ayay xamaaligii ku tiri ii qabo kadibna wuu qabtay wuuna soo qaaday asigoo keenay hoolkii guriga gabadhii labaad ayaa istaagtay oo madax qabatay halka tii saddexaad oo ul soo qaadato oo eygii garaacday weliba si aad u xun u garaacday iyadoo eygii qaylinayo markaas ayay inta qabatay ee laabta gelisay oo ilmadii ka tirtay ay madaxa ka dhunkatay kadib ayay xamaalkii ku tiri ord oo eygan qaad oo meeshiisa ku celi eygii kale ii keen imaamka haaruun rashiid aad ayuu ugu xumaaday asigoo wasiirkiisna ugu baaqay asiga oo kula faqay inay gabdhaha ka qabtaan eygan ay garaacayaan oo ayna weydiino waxa ay sidan u samaynayaan jacfar wuxuu haaruun rashiid ku yidhi amiirulmu'miniinow ha ilaabin inay shuruud nagu xidheen balse xoogaa aan sugno wax kas ayaa iska kala cadaanayay markaas ayay gabadhii saddexaad intay istaagtay ay sariirtii qurxooneed ku fadhiisatay oo labadii gabdhood ku tiri soo daaya waxaad haysaan tii koowaad sariirta ayay fuushay oo madax ayay la qabatay halka tii kale ay tirisay tix gabay ah oo calaacal iyo baroordiiq la circiraya markaas ayay dharka iska jexjeexday oo dhulka ku dhacday ayada oo suuxsan khaliifkana wuxuu arkay jirkeeda oo raad ka muuqdo garaaciyo ul aadna ula yaabay kadibna waxaa kacday tii labaad oo biyo ku shubtay gabadhii ay suuxsaneed oo dhar u keentay gabadhii kale ayaa kacday oo tirisay tix gabay ah oo baroordiiq ah ayadoo sidii hore oo kale ah oo dharka iska jexjeexday oo dhulka ku dhacday
ayadan jirkeeda waxaa ka muuqda ul ah sidii midii hore oo kale inta biyo lagu shubay ayaa iyadana dhar loo geliyay kadibna midii saddexaad ayaa istaagtay ayadoona tirsay oo iyadana tix calaacal tirsay markay tixdii dhamaysay ayaa ayadan sidii kuwii hore oo kale dhulka ku dhacday dharkan iska jeexjeexday kadibna raadka usha jirkeeda sidii kuwii hore oo kale ugu muuqday intii waxaas oo dhan oo dhacayeen khaliifkii Haaruun Rashiid iyo dhammaan kuwa kale ee daawanayeen mana weydii karaan sidii ay wax u jiraan saddexdii nin sawalka ayaa yiri war heedhe maxaa gurigan la soo geliyay wallahi qaab aan had u seexano maba garanaynaba waxaan dhacayna ma ahan wax indhaha laga laaban karo khaliifka ayaa dhankooda soo jileeca oo weydiiyay oo idinka gurigan miyadan degneen miya waxay ugu jawaabeen maya gurigan caawa ayaa nagu horeysaba waxaana ugu nimid ninkan xamaalka ah ninkii xamaalka ahaa asina ayaa yiri war anigu meeshan caawa ayaa igu horeyso markaas ay ragii iskula faqeen aynu weydiino sidii wax u jiraan waxaanu nahay 7 nin ayagana waa 3 dumar ah hadii ay noo jawaab waayeen qasab ayaan ugu hadal siinayna wayna isku raaceen arinkaas markaas ayuu Jacfar mar kale yiri aniga ra'yiyaan ilama haboona gabdhahan shuruud ay nagu xireen wayna soo dhaweeyeen marka shuruud ina ugu baxno ma aha waagiina wax saacad ayaa ka haray ee naga daaya markuu sidaas leeyahay wuxuu baqay khaliifkii muslimiinta wuxuuna hoos ugu sheegay khaliifkii ha iska waalin suwixii wax yar ayaa ka dhiman dadkana bir ayaan hortaada keenaya waxaan u wareysanaynaa si aan doonno balse khaliifku waa uu karay doonaa wuxuuna ku yiri iguma harin dulqaad aan suwixii aan ku sugo ee imanka ayaan weydiinaya waxaana la isku qabtay mar kale yaa weydiinayo waxaana marka hor leeyiri xamaali ha weydiiyo ilaan asiya guri ugu soo horeeyay aan ugu imaanay iyaga oo meeshii ku shiray ayaa gabdhihii ugu yimid waxayna ku dheen maxad ka hadlaysaan xamaaligii ayaa yiri ilaah baa idinku dhashay waa maxay eeyadan aad garaacaysaan kadibna aad dhunkanaysaan iyo garaaca jirkiina ka muuqda iyo wax guriyan ka socda oo dhan markaas ay gabadhii ku kale ku tiri idinkana xamaaliya meed la qabtaan isweydiinta markaas ay dhamaantood marka laga reebo Jacfar yiraahdeen ha waa la qabnaa ee noo sheega markay gabdhihii hadalkooda maqleen ay yiraahdeen wallahi waa na dhigteen shuruud ayaa idinku xirnay ama waxa idinka dartay martisoorka ay idin sameeynay gurigeena aan idin soo gelinay cuntadeedana aan idin siinay ee dambi idinka ma lihdin ee waxa iska qofka idin soo dhaweeyay kolkaas inay xanaaqeen luwaha dhulku garaaceen 3 jeer mise waxa furmay albaabku yaala dhulka hoostiisa waxaana ka soo baxay 7 nin oo adooma ah oo aad u xoog waaweyn waxayna wateen seefo af leh waxay gabdhihii ku amreen adoomadii inay nimanka xirxiraan markaasna kurka ka wada gooyaan markay sheekada halkaas maraysa ay Shahrazad ogaatay in suwixii la gaaray ay sheekadiina joojisay halkaas ayaan ku soo koobayaa taxanaheena maanta inta aan ku kulmi doono taxanaa xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh